بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسلسلكي ودروستي الرسالة دونت توحيدك oo maanta laba kelmood aan ka hadlayno insha Allah oo ku saabsan qaybta ilaashka. Walaalayaal, walaalo fara badan, rag iyo dumar iyo caruur, calooshoodu way bararsan tahay, calooshoodu waa fuuraysaa, calooshoodu waxay dareemayaan sidii ilmo oo kale ku dhex jiro. Hadda gabadhi uur male, laakiin caloosheedu waxaad ogaatay waa fuursan tahay, waa bararsan tahay. waxa ku barariyay mataqaana waqti jinniga halkaa kuu fadhiya, cadowgii halkaa kuu fadhiya, isaga caloosha afuufayo, nafakhiisi weeyaan, dabeeshiisi weeyaan, uu ku afuufayaa. Markaas waxaa dhacaysa in kuleel fara badan ayuu kugu furaya, dhibaato fara badan baad dareemaysaa. xitaa waxaa dhici karta musqusha inay ku adag tahay, waqtiyo fara badan inay ku adag tahay, wiig laba wiig inaad musqusha aad gelin. waxaa dhici karta moogta xanuuno fara badan oo markaa la saameynayo, oo arinka maaragtay xanuunka jinka, sixirada ayay u badayin ikhwaani fillah inay calooshaada ay maaragtay ay bararsan tahay. marka qur'aan saarka isa saar, waxaad calooshaada aad bay u xanuunaysaa, ku xanuunaysaa, weli dhinaca boggana ku xanuunaya, xudurta hoostiisa ama xudurta hoostiisa saa loo dhaahdo, ma fahamtay? problem badan baa jirta, aad dareemaysid runtii. korkaagii waxaad ogaataa uu isbedelay, midabkaagii ma taqaanid, culays fara badan baad dareemaysaa, madax xanuun fara badan baad dareemaysaa. aan usoo noqdo calooshan fuursan, walaalayaal, waxbaa ka dambeeya. jinka halkaa kuu fadhiya, qur-aanka ku gub, dawooyinka cilaashka ku gub insha Allah. oo waxaan halkan kaaga soo baryaynaa in ilaahay subxaana allah tacaala uu caafimaad ku siiyo, oo kaa qaado bararkan oo jinkan iyo saaxiriintan iyo waxaan kugu soo duulay in ilaahay meel kaa mariyo. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. intaasaan kaga baxayaa. waa kelmad ku saabsaneed calooshan fuurayso, calooshan bararsan maxay ahayd.